waa xalqadii lixaad ee taxanaha kun habeen iyo habeen. haddii ay tahay markii koowaad aad channelkan soo booqanayso fadlan subscribe-ka taabo like-tana saar gambaleelkana daaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeeda cusub anigana ay dhiirigelin igu noqoto iminkana daawasho wacan. habeenkii lixaad markii la gaadhay ayay Shahrazad waxa ay shakadii ku bilowday. boqoroo waxaad ogaataa markii odaygii kalluumaysatada ahaa Ifriidkii uga sheekeeyay shakadii boqor Yoonaan iyo Xakim Rooyaan ayuu odaygii kalluumaysatada ahaa yidhi Ifriid yahow haddii aad iska kaysii dayn lahayd waad badbaadi lahayd laakiin waxaad go'aansatay inaad ii disho allana dhagartaada wuu iga qabtay waxaadna noqotay sidii boqor Yoonaan oo kale aniguna hadda meeshan kaama saaraayo waxaanan kugu tuuri doonaa gunta badda ilaa aad ka dhimanayso. markaas ayuu Ifriidkii yidhi niyahow ixsaan ii fal oo xumaantaydii wanaagiigu bedel hana samaynin sidii uu umaama ku sameeyey Caatika. markaas ayuu odaygii kalluumaysatada ahaa yidhi oo muxuu ku sameeyey umaama Caatika. Ifriidkii waxa uu yidhi inta aan halkan maxbuus ku ahay kaagama sheekayn karo ee iga fur oo iga soo saar meeshan aniguna waan kaaga sheekaynayaa waxaana igu ballan ah inaan waxba ku yeelin. laakiin odaygii wuu ka diiday wuxuuna yidhi haddaad markii hore dhaafi lahayd dhibkan oo dhan muu yimaadeen aniguna aamin kaama qabo. Ifriidkii ayaa markaas u ballan qaaday inuusan waxba yeeli doonin isagoo ugu dhaartay inuu faraha ka qaadi doono. markii uu ballantaas qaaday ayuu odaygii go'aansaday inuu ka furo meesha uu ku xidhnaa isagoo ballantaas ku haleynayana uu ka furay. jinkii markii uu meeshii ka soo baxay ayuu inta saduuqii qabtay ayuu badda gunteeda ku tuuray. odaygii kalluumaysatada ahaa ayaa isku naxay wuxuuna is yidhi maanta unbad gacan gashay. markaas ayuu Ifriidkii ku yidhi Ifriid yahow allah wuxuu ballanta ha la oofiyo anigana waxaad iga ballan qaaday inaan waxba yeeli doonin ee iska kaysiidaa. Ifriidkii inta uu qoslay ayuu ku yidhi ninkii kalluumaysatada ahaa soo raac wuuna soo raaco kaxeeyey. sidii u waday ayuu geeyey meel magaalada ka baxsan oo ay ku taallo barkad biyo ku jiraan. wuxuuna jinniga odaygii ku yidhi shabaqaaga barkadan ku tuur. odaygii sidii ayuu yeelay shabaqiisina barkadii ayuu ku tuuray mise waxaba uga soo baxay 4 kalluun oo kala midab ah. kalluun kastaana midab gooni ah ayuu watay waxaanu ahaayeen midabo aan odaygu weligii hore u arkin. odaygii kalluumaysatada ahaa aad ayuu ula yaabay arrintaas. markaas ayuu Ifriidkii yidhi maalin kasta shabaqaaga hal mar ku tuur wixii kuu soo baxana qaado kadibna boqorka magaalada kalluunkaas u gee wuxuu kaa siisan doonaa qiimo aad u fiican qofna ha u sheegin wixiina dhex maray iyo meeshan aad kalluunka ka dabataba. kadibna Ifriidkii dhulka ayuu cagihiisa ku garaacay dhulkii ayaa kala dilaacay markaas ayuu dhex galay. ninkii odayga ahaa sidii ayuu yeelay oo kalluunka ayuu soo qaaday wuxuuna u geeyey boqorkii magaalada. kadibna boqorkii baa aad ula yaabay kalluunkan cajiibka ah ee aan noociisa horeba loo arkin wuxuuna amray in odaygii lacag fiican laga siisto sidii ayaana la yeelay oo lacag fiican ayaa odaygii la siiyey. kadib boqorkii wuxuu kalluunkii u dhiibay wasiirkii dhanka cuntada qasriga u qaabilsanaa isaguna wuxuu u sii dhiibay gabadhan yara ahayd oo boqortooyada ku cusbayd oo markaas uu boqorka Roomaanku u soo hadideeyay boqorka magaalada ka taliya. gabadhii yareed kalluunkii inta ay qaaday oo kajada geysay ayay dabka saartay. cabaar markii uu kalluunku dabka saarnaa ayaa gidaarkii kajadu inta uu kala dilaacay ay ka soo dhex baxday gabadh Jiini ah oo si qurux badan u labisan waxayna kalluunkii ku tiri kalluun yahow weli ballantii ma ku jirtaa. markaas ayuu kalluunka inta uu madaxa soo qaaday yidhi haa. gabadhii yareed markii aragtay arrintaas naxdin bay la suuxday. markii ay gabadhii soo miiraabtay ayay aragtay kalluunkii oo gubtay iyada oo naxsan waxaana u yimi wasiirkii oo ku yidhi aaway kalluunkii lagu yidhi shiil. markaas ayay gabadhii yareed uga warantay wasiirkii waxay aragtay oo dhan. wasiirkii ayaa yaabay wuxuuna u wacay ninkii kalluumaysatada ahaa waxaana ka dalbaday inuu keeno 4 kalluun kuwa la mid ah. markaas ayuu ninkii kalluumaysatada ahaa baxay oo barkadii tegey wuxuuna soo dabay kalluunkii isagoo u keenay wasiirkii. wasiirkii kalluunkii markan waxa uu u dhiibay gabadhii yareed isagoo oo ku yidhi bal markan aniga oo taagan dabka saar. markaas ayay gabadhii yareed kalluunkii qabatay oo dabkii saartay. kalluunkii markuu cabaar dabkii saarnaa waxaa sidii hore oo kala dilaacay gidaarkii kijada oo gabadhii jinka ahayd inta ay ka soo dhex baxday ayay kalluunkii ku tiri kalluun yahow weli ballantii ma ku jirtaa. markaas ayuu kalluunkii inta uu madaxa kor u soo qaaday yidhi haa. markay sheekadu halkaa maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaadhay wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa. habeenkii 7aad ayaa la gaadhay Shahrazadna sheekadeedii waxa ay ka sii ambaqaaday. markuu wasiirkii arrinkaa arkay ayaa waxa uu yidhi arrintan waa arrin aan laga aamusi karin waana inaan boqorka u sheegaa. markaas ayuu boqorkii u sheegay. boqorkii markii loo sheegay wuu aamini waayey wuuna rumaysan waayey waxa uuna yidhi indhahayga inaan ku arko ayaan rabaa. mar kale ayaa loo wacay odaygii kalluumaysatada ahaa oo lagu yidhi kalluunkii mid la mid ah noo keen. kalluunkii ayuu keenay kadibna boqorkii waxa uu wasiirkii ku yidhi markan adigu shiil kalluunka aniguna waan taagnaanaya oo waan daawanaya. wasiirkii ayaana kalluunkii dabka saaray laakiin sidii markii hore dhacday oo kale ayaa dhacday. gabadhii gidaarka ayay ka soo baxday su'aashii macruufka ahaydna kalluunkii bay weydiisay. boqorkii markuu arkay ayuu yidhi kalluunkan xaalkiisa uma bogin ee hala ii keeno ninka kalluunka soo jilaabtay. markaas ayaa waxa loo geeyey odaygii kalluumaysatada ahaa. markaas ayuu odaygiina waxa uu sheegay inuu kalluunkan ka soo dabay barkad u dhow buurta Heblaayo. boqorkii odaygii waxa uu weydiiyey imisa maalmood ayaa barkada loo soconaya. odaygii waxa uu ku jawaabay boqor oo nus saac ka badan looma soconayo.
boqorkii hadalkaas aad ayuu la yaabay wuxuuna amar ku siiyey in ciidankiisii oo dhan ay soo baxaan isaga oo soo aaday meeshii loo tilmaamay waxaana soo raacay ninkii kalluumaysatada ahaa oo jinnigii habaaraya sidii loo socday markii barkadii la tegey oo ay wada arkeen ayaa dadkii yaabeen waxayna la yaabeen barkadan aan meesha hore ugu ooli jirin horena loogu arki jirin iyo kalluunkan ay wadato ee kala nooc ah markaas ayuu boqorkii intuu dadka ka dhex kacay yidhi war ma jira qof barkadan hore halkan ugu arki jiray dadkii dhammaantood waxa ay wada sheegeen inaanu jirin hal qof oo halkan barkada hore ugu arki jiray boqorkii ayaa yidhi waxa igu ballan ah inaanan boqortooyada ku noqonin aniga oo aan ogaanin xaqiiqada ka dambaysa barkadan iyo kalluunkeedanba markaas ayuu boqorkii amar ku siiyey ciidanka inay meesha degaan kadibna waxa uu u wacay wasiirkiisii oo ahaa nin aad u caqli badan wuxuuna ku yidhi waxaan go'aansaday wasiirkaygiiyow inaan keligay baxo oo aan qofna i raacin soona ogaado xaalka barkadan iyo xaqiiqadeedaba marka adigu waxaad samaynaysaa waxaad hor istaagaysaa taandhadeeda qofna uma ogolaanaysid inuu ii soo galo una sheeg qofkii u baahda inuu arko inaan mashquulsanahay ilaa intaan ka soo laabanayo wasiirkii sidii ayuu yeelay boqorkiina saqdii dhexe habeennimada ayuu guureeyey wuxuu socdaba boqorkii markuu muddo maalmo ah safarkii ku jiray ayaa maalinta dambe waxa uu ku soo baxay qasri aad u madow lagana sameeyey dhagaxaan aad iyo aad u madmadow qasrigaasi waxa uu lahaa 2 albaab oo midkood furnaa ka kalena xidhnaa markuu boqorkii arkay ayuu aad u farxay wuxuuna is yidhi waxa laga yaabaa qof kuu warrama inaad meeshan ka hesho markaas ayuu qasrigii hor istaagay albaabkiina garaac laakiin waxa uu waayey cid la hadasha markuu cabaar garaacayay qofna la hadli waayey ayuu isagu albaabkii iska galay markaas ayuu la yaabay quruxda iyo bilicda qasriga xoogaa ayaanu ku dhex wareegayay laakiin qofna uu ka waayey waxaana qasriga ka buuxay alaab iyo maacuun ka samaysan dahab wax joogana qasrigaas may lahayn cabaar markuu qasrigii ku wareegayay qofna uu ka waayay ayuu markii dambe meel iska fadhiistay isaga oo yaaban laakiin waxay kadib ayuu maqlay sanqadh sidii qof xanuun hayo oo kale markaas ayuu boqorkii soo aaday dhankii sanqadhu ka yeedhay mise waaba wiil sariir kor saaran go'na huwan murugana ka muuqato kolkaas ayuu boqorkii wiilkii salaamay wiilkii salaantii wuu ka qaaday waanu soo dhaweeyey markay isxaal wareysteen kadib ayuu boqorkii yidhi waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo wiilkii ayaa yidhi waan kaaga jawaabayaa boqorkii waxa uu wiilkii uga warramay barkadii iyo kalluunkeedii kala midabka ahaa waxa uu boqorka ka codsaday in haddii uu wiilkii xog ka hayo barkada uu la wadaago wiilkii markii uu hadalka boqorka maqlay ayay ilma ka soo daadatay markaas ayuu boqorkii yaabay oo yidhi maxaa kaa oohinaya wiilkaygiyo wiilkii waxa uu ku jawaabay maxaan u ooyi waayey iyadoo xaalkaygu sidan yahay waxauna go'ii ka qaaday qaybtii hoose ee jidhkiisa mise wiilku qaarka dambe wixii xudunta ka hooseeya dhagax ayuu ka yahay inta kalena dad boqorkii ayaa yaabay kuna yidhi wiilkii maxaa kugu dhacay bal ii warran wiilkii waxa uu yidhi boqor waxaad ogaataa in buurahan aad u jeedo ee afarta ah inta u dhaxaysa magaalo ahaan jirtay waxaana muddo ka talin jiray aabbahay oo boqorka ahaa 7 sano kadib markuu dhintay aniga ayaa xilka la wareegay waxaan guursaday in adeertay oo ahayd gabadh aad iyo aad u qurux badan waxa ayna ii jeclayd si aad u daran weligeena maan arkin qof sideeda oo kale ii jeclaaday heer waxa ay gaadhay xitaa haddii aan ka maqanahay waxba aanay cuni jirin waxna aanay cabbi jirin gabadhaas waxaan qabay muddo 5 sano ah maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday cunto kariyihii ayaan ku amray inuu casho fiican noo diyaariyo kadibna waxaan u wacay 2 jaariyadood si ay iigu duugaan aniga oo sariirta saaran iyaguna ay ii duugayaan ayaan lulooday oo hurday qabatay balse hurdo khafiif ah ayay ahayd oo maan wada gamin markaas ayaan maqlay 2 jaariyadood oo sheekaysanaya mid ayaa tii kale ku tiri boqorkeenu waa nin miskiin ah oo kama warhayo dhagarta ay naagtiisu habeen kasta u maleegto waxay samaysaa habeenkii markuu cashaynayo ay cabitaanka binji ugu dartaa kadib marka uu sariirta tago ayuu seexdaa hurdo uusan ka soo kici karin iyaduna way baxdaa waxayna timaadaa subaxii salaada hore marka ay timaado ayay sanka qiiq u saartaa kaas oo uu ku kaco wuxuu yidhi markaan hadalkaa maqlay ayaan naxay haddana murugoodi manaan jawaabin dumarkii mana dareensiinin inaan maqlaayay kadibna habeenkii markii la gaadhay oo aanu cashaynay ayaa sharaabkii ay keentay xaaskayga balse maan cabin ee waxaan iska dhigay qof cabay oo kale waana seexday cabaar kadib ayay xaaskaygii ii soo gashay iyada oo leh naga seexo oo weligaa ha soo kicin adiga iyo muuqaagaba waa nacaya kadib ayay labisatay labiskii ugu bilicda samaa wayna iscarfisay seefteediina way sii qaadatay wayna baxday waan ka daba baxay iyada oo aanay dareemin wayna socotay ilaa ay ka gaadhay magaalada albaabkeeda laga baxo markaas ayay ku hadashay hadal aan la fahmaynin kadibna waxaa furmay albaabkii weynaa waxa ay sii gashay guri qasri u eg aadna u sharaxnaa waxaa qasrigaas ku jiray wiil madow oo bishintiisa hoose digsi ay u eg tahay halka tan sarena digsiga daboolkiisa la moodo madow awgii wuxuuna afkiisa ku burburinayay dhagxaanta yaryar ee qururuxa kuwaas oo dhulka daadsanaa markuu arkay xaaskaygii oo u soo gashay ayuu ku yidhi naa hoogto maxaa kugu dhacay oo aad iiga habsaantay saaxiibaday mar hore ayay intay baashaaleen kala tageen aniguna saacaddan ayaan keligii halkan kugu sugayey markaas ayay ku tidhi waad ogtahay sayidkaygiiyow inuu ii qabo in adeerkay wejigiisu ha gubtee haddaanan adiga kuu baqi lahaynna magaalada mar horan ka dhigi lahaa mid qarriban waana baabiin lahaa si ay isugu beddesho meel dugaaggu ay ku nool yihiin oo dadka ka caagan markaas ayuu ku yidhi naayaa beenaley ayaa tahay anigaad beentaas ii sheegaysa soo maha waxaad ogaataa haddii maanta kadib aan ku arko adiga oo xilligan oo kala soconaya inaanan mar dambe ku taaban doonin khaa'inad yahay xumi markaan hadalkaasi bahdilaadda loo geysanayo xaaskaygii aan maqlay ayuu adduunkii oo dhan ila madoobaaday
ciil aad u daranna uu qabtay xaaskaygii waxay jilbaha ku ritay ninka iyada oo tuugaysa oo leh qalbigaygiiyo xabiibkii aan jeclaayo nuurkii indhahaygiiyo iyo waxyaalo badan oo la mid ah ilaa uu ka raali noqday markaas ayay faraxday oo dharkiis ka siibtay waxa ay weydiisay inay taallo cunto la cunaa waxa uu u tilmaamay weel ay wax ku jiraan mise waxaba ku jira lafa la dubay kadib inta ay cuntay ayay ninkii madoobaa hoosta ka gashay markaan arkay waxay samaynaysay naagteeda ayaa dunidii igu madoobaad markaasaan go'aansaday inaan labadoodaba dilo waxaana la soo baxay seeftaydii waxaan qoorta kaga dhuftay ninkii anoo u malaynayay inuu dhintay markay sheekadu halkaa maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaadhay markaas ayay aamustay oo hadalkii u bannaanaa joojisay habeenkii 8aad markii la gaadhay waxay Shahrazad sheekadii sii ambaqaaday iyada oo leh wiilkii boqorka ahaa oo sheekadii sii wada ayaa waxa uu yidhi markii aan adoonkii madoobaa seeftii ku dhuftay waxay kaga dhacday dhuunta iyada oo goysay maqaarka iyo hunguriga waxaanan u maleeyay inaan dilay meeshuna waxay ahayd mugdi daran oo si fiican laysuma arki karaynin markaas ayuu adoonkii khuuriyey kadibna naagteedii ayaa soo booday oo ninkii madoobaa qaaday intay akhriday waxaan la fahmaynin aniguna anoo aad u yaaban kana shakisan inay aragtay iyo in kale ayaan qunyar soo baxay waxaanan imi qasrigii oo anoo iska dhigay nin caawaba sariirtiisii iska hurday markaas ayay ii timi subaxii iyadoo xidhan dhar madow waxayna igu tidhi waxay soo gaadhay in qof qaraabadeeda ka mid ahay uu dhintay oo dhanka hooyo iga soo gala marka taasi ayaa ii taalla ee waxa aan rabaa quba yar inaan ka dhisto qasriga gudihiisa markaas ayaan ka ogolaaday anigoo ka xun inaanan iyadana dilin balse waxaan ku gaadayay jaanis aan ku dilo waayo waxaan ka cabsi qabay haddii aan fashilmo inay i sixirto markii dambe waxa aan ogaaday inay qubada u dhistay oo ku haysay kuna baxnaaninaysay adoonkii madoobaa oo dhaawaciisu aad u darnaa markaan ogaaday inay gabadhu ku dhaawacinayso adoonkii madoobaa qubada gudaheeda ayaan cadho ishayn waayey oo aan soo qaatay seeftaydii si aan labadooda kurka uga gooyo balse markaan u galay ayaa hadal aanan fahmaynin inta ay tidhi wax igu daadisay kadibna sidaa aad u jeedo ayaan noqday oo qaarka hoose ayaan dhagax ka noqday naagteedii intaasoo qura kumay ekaanina waxay sixirtay magaaladeedii oo dhan oo isku beddeshay qaabka hadda aad u jeedo waxaana magaalada ku noolaa 4 nooc oo dad ah kuwaasoo kale ahaa muslimiin yahuud kristan iyo majuus dabcaabud ah dhammaantoodna way sixirtay iyagoo isu beddelay 4 nooc ee kalluunka aad sheegtay ee barkada ku jiray intaas kuma aysan hadhin maalin kasta way ii iman jirtay wayna garaaci jirtay galabtiina way daaweyn jirtay kolkaas ayuu boqorkii wiilkii ku yidhi murugtii ay haysay waxaad iigu sii dartay murug kale ee aawe xaaskaagana hadda sheegayso xaggee joogtaa kolkaas ayuu wiilkii yidhi waxay ku jirtaa qubaddii oo maalin kasta waxa ay u timaadaa ninkii madoobaa ee dhaawac ahaa kaasoo aan hadli karin wax dhaqaaq ahna aan samayn karin markastoo aad ka soo tagtana aniga ayay ii timaadaayo i ciqaabtaa boqorkii waxa uu wiilkii ku yidhi wallaahi baanan sidan xaalkaaga kusii jiraynin kaagana tegi maaya adigoo sidan ku jira waxaan wax kasta oo aanan wada u samaynayaa sidaan kuu caawin lahaa gabadhaana aad uga xoroobi lahayd uga arsan lahaydna kadibna wiilkii ayuu la fadhiistay ilaahay waa beriyey markuu waagii beriyey ayuu boqorkii seeftiisii la baxay waxuuna galay qubadii waxa uu ugu tegey ninkii dhaawac ahaa oo keliya markaas ayuu kurka ka gooyey kadibna inta uu soo jiiday ayuu ku dhex riday ceel meesha ku yaallay kadib boqorkii waxa uu gashaday dharkii addoonku gashanaa waxa uuna huwaday go'iisii seeftiisiina hoosta ayuu gashaday sariirtiina wuu ku jiifsaday wax yar kadib waxaa timi gabadhii markii hore waxa uu gashay wiilkii boqorka ahaa ee lugaha dhagaxa ka ahaa markaas ayay garaacday welibana si xun u garaacday kadibna waxay u soo gashay boqorkii oo ku jira qubaddii isagoo iska dhigaya inuu yahay addoonkii madoobaa markay u soo gashay ayay ku tidhi sayidkaygiiyow ila hadal maalinkay dhibkani ku soo gaadhay ilaa iyo hadda waan murugaysnahay farxaddayduna adiga ayay kugu xidhan tahay ee hal mar oo keliya bal ila hadal markaas ayuu boqorkii hadal daciif ah oo aanay fahmaynin kula hadlay markay maqashay hadalkaas ayay aad iyo aad u faraxday wayna rumaysan weyday inuu sayidkeedii la hadlay kadib ayuu cod daciif ah oo kale ku yidhi anigu waxaan la caafimaadi la ahay waa cuquubada ninkaaga ee haddii aad rabtid inaan caafimaado sixirka aad ku xidhay ka fur ninkan miskiinka gabadhii oo aad u faraxsan ayaa tidhi waa yahay sayidkaygiiyow isla hadda ayaan ka qaadayaa markaas ayay intay sixirkeedii akhriday wiilkii boqorka ahaa sixirkii ka furtay isla markiiba wiilkii sidiisii hore ayuu ku soo noqday kadib inta ay la hadashay wiilkii ayay ku tidhi iskaga tag meeshan oo yaanan mar daba ku arkin markaas ayuu wiilkii meeshii ka tegey kadibna inta ay qubadii soo gashay oo ku soo noqotay ayay tidhi sayidkaygiiyow go'a iska qaad aan ku arkee kolkaasuu boqorkii ku yidhi weli waxba imaad qabanin asalkii xanuunkii hayeyna wuu hadhay mislenaad igu jeceshahay markaas ayay tidhi waa maxay asalka xanuunka ku haya sayidkaygiiyow waxa uu ku yidhi adigu markii aad dadkii magaalada deganaa wada sixirtay ee aad kalluunka u beddeshay maalintaas laga soo bilaabo ilaa iyo hadda habeen kasta way habaaraan ee haddii aad rabtid inaan caafimaado iyagana sixirka ka fur markaas ayay intay soo baxday oo sixirkeedii akhriday magaaladii sideedii ku soo celis oo dadkii halkii ay nolosha u maraysay ka sii wateen kadib ayay iyada oo faraxsan boqorkii u soo gashay markaas ayay ku tidhi sayidkaygiiyow ii oggolow inaan kuu soo dhowaado oo gacantaada dhunkado markay sheekadu halkaa maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaadhay markaas ayay aamustay oo hadalkii u bannaanaa joojisay halkaas ayaynu maanta ku soo koobaynaa xalqadeennan inta xalqadda xigta aynu ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa nabaday